ugu socono kooxda kacdoonka soo jeedka qabyaaladda qayb ka mid ah isla markaas sababaha Nairobi aan wax ka mid ah barnaamij ku qabano aan wacyigelinta halkaas gaarsiino waxa uga sii gudbi doonaa Nairobi isku meekaanina magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya halkaas waan damacsanaa iyadana inaan barnaamij ku furno waliba markaa fiistoos looga hirgeliyo kacdoonka soo jeedka qabyaaladda insha Allah وأعتقد إنه وجود بمجالات لندن إن شاء الله وحرجاننا هنا كسول أولنا أنه هوش أو بحني ينكسي ونكسب بسوق ونا ومدنا وعي جلني قبيلتنا أي هوش وقدر عضيد اللي يربطنا الصومالية ده ودك الجديد كجوجنا حرجاننا الله كلنا سيانو ولا هذا الوحياة بدن ومستقبل كودا ومستقبل كودن كي بدكم يكون تنتظر ما لبعض دقيقة كدنا ومالتي لقاضي كنسيب كنسار وهبيكي عيدة لنا الصوماليات سنة جوجوج وجوتي جوجوج وهاين على كي وراي لقتاجو وطنك أحرى وطنك إسرائيل على واحد جنيا سنة كبديسة وطنك أحرى أنا وقعتني مكلا بنا وطنك يكون الله مني قالوا ما توقع جوجنا إن الله ينبض كانوا هذا بس واحد كاي لأن يرادوا كارثة كعيار كران لأن يرادوا دور كيف يقولين لأن يرادوا سمحي كقبل كران أريتان ديراتي هذا ما هدي يوم ياشل لقيت علي ما نسمي كران لأن يرادا يتبدل كيري كرتي مني ملحني بدي ملحني ما تعالي معي علي ومجد واحد اسبدل اسبدل كران نجي ماتو هذا واحد كذا أمور صومالية والله ما يعبحي Anti-Tribalism movement الصومالي يغير هذا كعدوك سوجات كقبيالته قبيالته وواحد لبعتني يدور سنة دولة أنتنا دقي وواحد قويتك النستاجي وواحد نقول وانتك يكون تقاتيني كرني عالو هالكرنا كاني أهلا عبد العزيز مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب ورينا نيروبي آلي آدم ما سبتين سيد في عن نوصل دويسين أعتقد Soomaaliya ونوصل دويسين وحنا وقتي ووقف حاجة سيد قرودنا بلان أنا أنتي شو بحرين إيه الأوتفال بكان مالتي أي مقادني حريته وجاي مقادني وميسي وتكين هيستي Soomaaliya توصو اسكتير سني هاد بكينا تقدرن تغير وليجي ووحي كسو كحيي أفكولا هو إنه أوكا نرملا وتاقنا وإسوسو بحي وده حتى نغجره لبقى يكون تصرف iyo inta u diyaarsan inay halka kala siiyaan baqaadaan iyo inta danta qabta u arkaysa dadku inuu qof yahay qabiilku isku garasho yahay qabyaaladina ay tahay taaynu madaxeedii iyo midhaheedii hayno oo markii laga soo bilaabay inagoo ummad Soomaaliyeed ay yiraahdo geeska Afrika qorax ka soo baxa meesha degan inaynu dhulkeenii u baabi'inay xabaasha aan anigu ka soo jeedaa ka wanaagsan xabaasha aad ka soo jeedo oo maanta halka ay dhigtay leeyteena dalxiis uma inaan iimaane qaxiyo barakac waynu ku nimiye xabaasha natiijadeedii waynu haynaaye dadkii ka soo ambaqaaday halkaas ilaahay baa mahad iskale way ku amaanan yihiin ummadoodana taariikhda ka geli doonaan waxaan u mahad celinayaa sidoo kale dadka fursadooda iyo firaaqadooda soo siiyey dareenkoodana qaba war intiinan isku qoloma noqon kartaano ummaduhu danbay eegaan intiinan isku kacaan ma tihiin oo biyaha ma iswaraabin kartaan ma israaci kartaan oo gacmihiin iyo caqligiin iyo garashadiin iyo waddankiin ma ku hagaajin kartaan inta aaminsanna aad bay u mahadsan yihiin